wanaagsan oo wacan idil ahaantiin baa meel kasta caalamka daafiisa iyagayga Soomaaliya naga daawanaysaan ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waa xubinteennii labaad ee barashada application-ka KineMaster maalintii hore waxaynu soo qaadnay qaabka fiidiyowga loo sameeyo qaabka midabka looga bedelo iyo qaabka transactionada loogu sameeyo KineMaster maanta waxaynu soo qaadan doonaa qaabka codka loo duubo audio ama cod aad duubatay qaabka loo soo geliyo qaabka loogada loo soo geliyo muuqaalkaaga dhexdiisa iyo qaabka tagas amaba qoraal loogu qoro fiidiyowgaaga haddaba marka koowaad waxaynu samayn doonaa application-ka ayaynu soo furan doonaa application-ka wuxuu nooga furmi doonaa qaab noocan oo kale ah application-ka waxay nooga furmi doonaa qaab noocan oo kale ah kabacdi sidii caadada ahayd waxaynu ku dhufan doonaa halkaas ayaynu ku dhufan doonaa click ayaynu siin doonaa ama kabacdi waxaynu ka sii dooran doonaa 16.9 ayaynu ka sii dooran doonaa waxayna soo bixi doonaa qaab noocan oo kale ah kabacdi markaynu doonayno inaynu muuqaal soo gashano maalintii hore casharkaas ayaynu soo sharaxnay laakiin maantana si aynu samaysano sawirro ayaynu ka dhigan doonaa muuqaal kaas haddaba aanu gudagalo maanta mawduuceena maanta waxaynu soo qaadan doonaa qaabka cod markaad doonaysid inaad la duubo markaad doonaysid inaad cod duubto qaabka aad u duubi leed marka koowaad haddaad doonaysid application-ka inaad cod ku dhex duubtid waxaad tegaysaa halka ay ku qoran tahay voice halka aan ku calaamadiyay ay ku qoran tahay voice ayaad tegi doontaa saasaad ugu dhufan doontaa kabacdi markaad codka duubaysid waxaad taaban doontaa start ayaad taaban doontaa markaad codka dhamaysidna stop ayaad taaban doontaa iminka ma doonaya inaan cod duubo xubinteena labaad aynu maanta kusoo qaadanaynay barnaamijkeena waxa weeyaan qaabka aad cod aad soo duubatay ama cod aad hore u duubatay aad u soo gelin karto muuqaalkaaga hoostiisa haddaba marka koowaad waxaad tegaysaa halkay ku qoran tahay audio ayaad ku dhufan doontaa wakaa codad hore kugu jiray ama codad aad soo duubatay hadday meelahan kugu jiraan sidaas ayaad ugu dhufan doontaa codka dushiisa kabacdi waxaad ku dhufan doontaa calaamadda yar ee pluska ah oo ah ku soo dar saas ayaad ugu soo dari doontaa marka wakaas imka codkii waa ka halkaas soo galay muuqaalkaaga hoostiisa ayuu codku soo gelaya muuqaalkaaga hoostiisa wakaa codku soo galay wakaasaad waa aragtaanba markaad doonaysid inaad codkaas oo kale ka delete garaysid kabacdi waxaad samaynaysaa codkaad ayaad korkiisa ku dhufanaysaa markaad korkiisa saa ugu dhufatid waxaa kuu soo bixi doonta calaamadda delete markaad xagga bidix eegtid calaamadda delete ayaad ka arki doontaa halkaas ayaad ku dhufan doontaa iminka tusaale ahaan oo kale haddaynu ku dhufano delete waa kaa codkii baxay haddaad doonaysid inay soo ceshatidna saynu hore u sheegnay taa calaamadii soo ceshada ama reandooga saasaad soo ceshan doontaa marka aad doonaysid inaad muuqaalkaaga ku darsatid tagas ama qoraal inaad ku darsatid waxaad tegi doontaa halka ay ku qoran tahay layer ayaad ku dhufan doontaa kabacdi waxaad kasii dooran doontaa halka ay ku qoran tahay tagas ayaad kasii dooran doontaa saas ayaynu tagas ugu dhufan doonaa halkan waxaynu qori karnaa tusaale ahaan oo kale bandhiga kanaalkaas hadda naga daawanayso ayaynu ku qorin doonaa halkaas waxaad ka bedeli doontaa qoraalkaaga midabkiisa ayaad ka bedeli doontaa imka waa caddaan aynu midabka ka bedelno casaankaas oo kale aynu ka dhigno waxyaalahan oo dhan midabada kala duwan ayaad ka dhigan doontaa casaankaaba inoogu daa halkan oo kale waxaad ka bedeli kartaa qoraalka fointiga farta qoraalkaaga ayaad ka bedeli doontaa halkaana kaas farta qoraalkaaga qaybaha kala duwan ayaad ka dhigi doontaa waxaan oo dhan waa farar kala duwan taas aynu ka dhigan doonaa imika report board kaasaan ka dhigan doonaa robert board kaas aynu ka dhigi doonaa kaas markasta calaamadda yar baad taaban doontaa kabacdi xagga aad doontaad dhigi kartaa adaa dhinaca aad doonta u rari kara xagga aad doontid ayaad u rari kartaa halkaas aynu jeesanahay imika tusaale ahaan oo kale halkaas aynu daasanahay koonaha yar
markaad doonaysid inaad muuqaalkaaga uu la wada socdo qoraalkaasi waxaad taaban doontaa tagga waxaad daawan doontaa tagga farta ama tagga qoraalka taaban doontaa kabacdi xagga dambe ayaad jiidi doontaa xagga dambe ayaad saa u jiidi doontaa si uu qoraalkaaga wada raaco kaas saas ayaad u jiidi doontaa okay saas ayaad ugu dari doontaa ilaa dhamaadka ayaad saa ugu dayn doontaa ilaa muuqaalkaaga dhamaadkiisa ayaad saa ugu joogtin doontaa markaynu intaa kaga nimaadno qoraalka waxaad u samayn kartaa animation baad u samayn kartaa markaa animationadan kala duwan taas waa in animation oo waa markuu qoraalkaagu sida uu ku bilaamayo tanna waa overall animation auto animation waa markuu baxayo suu kaga baxaya waxyaalahaas oo kale ayaad halkan oo kale waxaad capacity-geeda ama awoodda qoraalkaaga ayaad ka dhigin kartaa kana badin kartaa oo kaas imika wuxuu taagan yahay 100% hoos haddaan uga dhimo qoraalku yaraanayaa capacity-giisii ama awooddiisii ayaa hoos u dhacaysa markaa 100 inoogu daa sidoo kale markaad doonaysid inaad ku soo dartid qoraalkaaga effect ama meel ka mid ah inaad shucaac yar saartid ama aad qarisid waxaad tegaysaa halka ka qoran tahay layer ayaad tegi doontaa saas ayaad layer ugu dhufan doontaa kabacdi waxaad kasii dooran doontaa effects ayaad kasii dooran doontaa saas aad ugu dhufan doontaa kabacdi waxaad kasii dooran doontaa basic effects ayaad ku dhufan doontaa basic effects markaad kusii dhufatid labadan option baa kusoo baxaya kaa doontaa dooran kartaa kaabay noo doorinaga markaa muuqaalkaagii shucaac yar saarnay halka aad uga baahan tahay inaad qarisid ayaad saari doontaa kaas capacity-giisa ama awooddiisa halkaas ayaad ka kordhin kartaa halkaynu hore u sheegnay waa audacity halkaas ayaad ku dhufan doontaa ay ku qorantay audacity halkaad doonaysid inaad qarisid almacnooyinka waxaan doonayaa tusaale ahaan oo kale halka ay bandhiga history ku qoran tahay inaan qariyo kaas capacity-geedana haddaan xoojiyo 100% bay tahay kaas saasaad u qarin kartaa imika lama arko kaas bandhig history lama arko haddaynu intaan kaga nimaadno effectiska amaba intaa haddaynu kaga nimaadno waxaynu hore ugu sii socon doonaa edit gareyntiina haddii aad doonaysid imika tusaale ahaan oo kale